Awalan Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuh. Daawada kusoo dhawow channelka Aqoon Official. Haddaad channelka cusub tahay subscribe saar, like, asxaabadaada u share garee si ay uga faa'iidaystaan. Maanta waxaan xalinaynaa imtixaanka dowladda 2021 maadada history ayaan xalinaynaa ama taariikhda. Waxaan ku hormaraynaa part 1 oo circle ah ayaan gudbinaa. Part 1 haddaan fiirino, fiditaankii dowladdii Cusmaaniyiinta waxa ay gaarsiisay goboleed ama gobollada ay gaarsiisay ba oo 50 gobol ah, ta 32 gobol, ja 43 gobol, xa 23 gobol. Jawaabta saxda aan ka dooranayno waa 32 gobol oo ta ah ayaan ka dooranaynaa waa 32 gobol. Nambarka ku xiga haddaan fiirino ee labaad, caqabadaha ugu weyn ee haystay ciidankii Cusmaaniyiinta marka ay fulinayeen Constantinople waxa ay ahayd wareejinta maraakiibta, khilaafka u dhexeeyay awood yarida ama awoodda cadowgooda iyo hub yari. Nambarka aan ka dooranayno waa wareejinta maraakiibta oo ba ah. Su-aasha saddexaad haddaan u gudubno, dowladda Cusmaaniyiinta markii ay tabar yaraysay waxaa loogu yeeri jiray ninkii reer Yurub ee xoogga badnaa, boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo dowladdii Islaamka. Marka jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ba oo ah ninkii reer Yurub ee jirin ayaan ka dooranaynaa oo waxaan ku sameynaynaa circle ama googli. Waa nambarka ba ama xarafka ba, ninkii reer Yurub ee jirin ayay noo noqonaysaa. Haddaan fiirino marka su-aasha ku xigta ee afraad, haddaan u gudubno, ururka Sahyuuniyadda Caalamiga ah waxaa aasaasay ba Theodore Herzl, sidoo kale ta Ben-Gurion, ja Isxaaq Rabin iyo da oo ah Golda Meir. Jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ba ayaan ka dooranaynaa oo ah waxaan ka dooranaynaa Theodore Herzl ayaan ka dooranaynaa marka oo ba ah. Haddaan fiirino nambarka shanaad, su-aasha ku xusan, dadka ku nool gobolka Kashmir waxaa Muslim ah ba 40, ta 80, ja 60 iyo 10. Marka waxaan ka dooranaynaa waa ta oo 80 boqolkiiba waa muslimiin waa marka. Haddaan fiirino nambarka ku xiga ee lixaad, imtixaanka dowladda 2021 maadada history ama taariikhda. Su-aasha lixaad aan u gudubno, hay-adaha kaliya ee rasmiga ah ee u xilsaaran maxkamadeynta dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha waa ba waxaa haysanaa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada, ta golaha ammaanka, ja midowda Afrika, xa jaamacadda carabta. Waxaan ka dooranaynaa marka midda saxda ah oo waxay noo noqonaysaa nambarka ku xusan ba, maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ama ICC ayay noo noqonaysaa. Nambarka ku xiga ee toddobaad haddaan fiirino, golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu go'aamiyay in Soomaaliya la hoosgeeyo habka dowladnimada gaarsiinta muddo dhan 15 sano, 17 sano, 10 sano, 5 sano. Jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa 10 sano ayay noo noqonaysaa oo inta la gaarsiinayo. Nambarka sideedaad, taliyihii ugu horeeyay ciidanka Soomaaliya markii la dhisay kadib wuxuu ahaa Generaal Maxamed Siyaad, Generaal Daawud Cabdullaahi Xirsi, Generaal Caynaashe iyo Generaal Galaal. Jawaabta saxda aan ka dooranayno waxay noqonaysaa xarafka ta, Daawud Cabdullaahi Xirsi ama Generaal Daawud Cabdullaahi Xirsi ayay noo noqonaysaa. Waxaan u gudbaynaa marka nambarka ku xiga sagaalaad imtixaanka dowladda maadada taariikhda 2021 la galay ayaan u gudbaynaa. Su-aasha sagaalaad haddii aan fiirino, 1976 waxaa la kala diray golihii sare ee kacaanka waxaana lagu soo reebay ama lagu soo koobay 5 xubnood, 7 xubnood, 4 xubnood, xubno badan marka ama xubno badan lagama soo reebin. Nambarka saxda ah haddii aan ka doorano waxay noqonaysaa marka waa 5tii golaha la isku dhihi jiray oo 5 xubnood waa marka 5tii golaha kacaanka sare waa 5 xubnood. Haddii aan fiirino nambarka ku xiga u gudubno tobanaad, haddii aan fiirino marka dhaqdhaqaaqa Mahdiyiinta waxa ay ahaayeen kacdoonkii ugu muuqday ee ka dhaca ba Suudaan, ta Liibiya,
ja Masar, xa Koonfur Afrika. Jawaabta saxda aan ka dooranayno marka waxay noqonaysaa dhaqdhaqaaqaas wuxuu ka dhacay dalka Suudaan ayuu ka dhacay oo ku xusan xarafka ba ku xusan ayaan ka dooranaynaa oo Suudaan ah. Lambarka ku xigo haddaan aan fiirino 11aad Jamhuuriyadda Midowga Koonfur Afrika waxa ay ahayd mid ka mid ah tusaalayaasha ugu foosha xumaa xagga dagaalka, midab kala sooca, gaajada, musuqa. Marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah midab kala sooca ayaan ka dooranaynaa. Su-aasha ku xigta ee 12aad bishii Sebteembar 1939 ciidamada Jarmalka ayaa qarxiyay dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii ay ka tallaabeen soodintii dalka Poland ayay noqonaysaa oo Poland markii ay ka tallaabeen waa markii dagaalka labaad uu bilaabanay. Waxaan u gudbaynaa su-aasha ku xigta 13aad imtixaanka dowladda 2020-2021 ee History ayaan weli ku jirnaa. Part 1 ayaan xalinaynaa, qaybaha kale waa soo gudbin doonaa insha Allah. Su-aasha ku xigta ee 13aad haddii aan fiirino waxaa ku dhintay markaa dagaalkii labaad ee adduunka dad lagu qiyaasay ba 50 milyan, ta 62 milyan, ja 30 milyan, xa 20 milyan. Jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa waa 62 milyan ayaa qiyaas ahaan lagu qiyaasaa. Su-aasha 14aad dagaalkii qaboobaa Yurub waxa ay aragtay iyada oo u kala qaybsan 2 isbahaysi, 3 isbahaysi, 4 isbahaysi, isbahaysiyo badan. Jawaabtu marka waxay noqonaysaa waa 2 isbahaysi ayay noqonaysaa xarafka ba. Su-aasha 15aad kadib soo jeedinta Golaha Ammaanka ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa magacaaba xogayaha guud muddo 4 sano, 5 sano, 6 sano, 7 sano. Jawaabta waxay noqonaysaa marka waa 5 sano ayaan ka dooranaynaa oo ah xarafka ta ku xusan oo 5 sano ayaa ay noqonaysaa marka. Haddii aan fiirino nambarka ku xiga 16aad haddii aan fiirino dowladaha xubinta ka ah ururka Midowga Afrika waxaa haysanaa marka dowladaha xubinta ka ah ururka Midowga Afrika 32 dowladood, 50 dowladood, 54 dowladood, 100 dowladood. Marka waxay noqonaysaa 54 dowladood waaye oo qaaradda Afrika ah. Dhammaan dowladaha ayaa ka mid ah waa 54 dowladood. Su-aasha ku xigta 17aad fikradda aas-aasta ama ururka midnimada Islaamka waxaa soo jeedinteeda lahaa madaxweynihii Soomaaliya oo iska lahaa marka Aadan Cadde ama Aadan Cabdulle Cismaan ayaa iska lahaa fikradda soo jeedinta ah. Su-aasha ku xigta 18aad dastuurka Soomaaliya ee sanadkii 1961 waxa uu ahaa dastuurka koowaad ayuu ahaa oo midkii koowaad ayuu ahaa marka. Haddii aan fiirino nambarka ku xiga 19aad tiirarka dimuqraadiyadda ay ku taagan tahay waxaa ka mid ah kalitalisnimo, adeegsi awood, doorasho, xukun dheer. Marka jawaabta aan ka dooranayno waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah doorasho ayay noqonaysaa marka tiirarka ka mid ah dimuqraadiyadda waa ja oo doorasho ah. Nambarka ku xiga haddaan fiirino 20aad ee ugu dambeeya doorashadii ugu dambeysay 1969 tirada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu gaaray 132, 123, 213, 231. Jawaabta aan ka dooranayno waa xarafka ta 123 xubnood ayuu ahaa marka baarlamaanka 1969 ayuu ahaa. Waa part 1 oo circle-ka ah. Waxaa noo haray marka qaybo kale waa soo gudbin doonaa insha Allah hadduu eebba idmo. Haddaad channelka cusub tahay subscribe saar, like asxaabadaada u share garee. Aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.